markii hore ingiriiskan ka imiday intaasoo ayaamood baanu kala sii soo soconayna shaqadayadii iyo ciyaalkaygii iskuulkii tan yar baan yan keenay oo imika ugu horeysa 8 jir weeyaan iskuulkeygii iyo wixii iyo shaqadayadii baan ayaan kasta sii socda bas iyo maxay hayday taxi ayaan kasta sii socda oo maxay hayday waxaan bas kilometer la nasaaray ka soo degay baa la yiri nolol ma aha sidani isuudhan baan ka walaalo waxaan ku qarnaa 8 bishaan ku qornaa afar biri halkan waa la isku dabad wareejin maalin walba waan imaada soo noqo sii soco iskoolkayga waxa la furay 10 bisha la furay 20 biri baan ka daahsanay inanteeduna waa saas laga wadaa iska xanaanadeeda shaqadeedu waa saas laga basasbaad maanta raacdeen waxaad ku mudaharaadeen gobolka waxaad xidheen wadadii sababtaad u xidheen wadada maxay ahayd xageed soo socoteen waxaan u xidhnay wadada waxa weeye in la soo warcad dawladda ayaa naga xukuntaa dawladda inaanu animayaga ay dawladda hoos ka shaqeysaa way ahayd Ethiopia iyo dawladuna in wada hadlan bay ahayd dabadku waxay ku hadleen ay noo sheegaan at least wasiir aanu la hadalno ma aragno wasiirka dawladda hawada maanu helin wasiirka arrimaha gudaha waxa la yiri ma joogo ammaan darro inaanu abuurno anaguna ma doonayno laakiin ammaan darrada waxa abuuraya inaanu dawladda aanu gudi iska saarnaano niri aanu la hadalno wasiirka arrimaha gudaha way anagu rabshada aanu sameeyay ee maanta ka dhacday halkaasi ma yahay mid aanu anagu ku talagalay dadkan ay doonayeen laakiin waa mid markaanu saaka 8 aanu nimid hadalay ilaa iyo kowdii hornimo taaganahay waa mid ay nagu kalifay weeyaan shirkadda diyaaradaha ee dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay joojisay duulimaadyada ay ku iman jirtay Somaliland sida ay daabacday mareegta Ethiopian Review joojinta shirkadda diyaaradaha ee dalka Itoobiya ay ku joojisay duulimaadyadeedii ay Somaliland ku iman jirtay ayaa salka ku haysa khilaaf soo kala dhaxgalay wasaaradda duulista hawada iyo shirkadda Ethiopian Airlines kadib markii wasaaradda duulistu ay cadaadis ku saartay inay duulimaadyadeedii ay ku degi jirtay Berbera ay u soo wareejiso magaalada Hargeysa shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa iyagu codsaday inay tayada dhabaha diyaaradaha ee garoonka Cigaal oo liidata awgeed aanay suurtagal ahayn inay ka degaan diyaaradaheeda oo ku taagan milaayiin dollar garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa xidhnaa muddo sanad iyo badha taasi oo ay ku socotay dayactir maalgelinteeda lahayd dowladda dalka Kuwait wasiirka duulista hawada Somaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo sheegay inay ku baxday madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa lacag ka badan 4.5 milyan oo dollar ayaa sidaasi ku sheegay khudbad uu ka jeediyay furitaanka xafladda madaarka ee Cigaal shaqada laga qabtay runwaygan oo dawladda Kuwait bixisay oo ku baxday isaga iyo faniskiisa oo 6 kilomitir iyo baraha waxay ahayd lacag dhan ilaa 4 milyan iyo 400 oo dollar baa loogu talagalay 19 milyan ee dollar ee dawladda Kuwait ugu caawisay haddaba kasako furitaankii madaarka caalamiga ah ee Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa soo fadhiisatay muddo 7 ah diyaaradii ugu horeysay ee laga leeyahay dalka Itoobiya ee heer caalami ah taasi oo la sheegay in ay tahay mid ka mid ah diyaaradaha dalka Itoobiya ugu weyn diyaaradaasi ayaa markaasi kadib waxa aanay dib u soo fadhiisan madaarka Cigaal iyada oo eedeymahan dhinaca musuqmaasuqa ah iyo in la shaxaaday lacagtii ku baxday loo jeediyay wasaaradda duulista hawada isla markaasina ay sheegtay in aanu ku haboonayn dhabada diyaaradaha ee magaalada Hargeysa fariisinka diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ku iman lahaayeen magaalada Hargeysa xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen arrintan la xiriirta joojinta diyaaradda Ethiopian Airlines ee duulimaadyadeeda joojisay iyagoo ku canaantay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xisbiga mucaaradka ee wadani sarkaal sare oo u hadlay shalay ayaa waxa uu ku sheegay arrintani waxaan u aragnaa arrin aan ummadan qabanin dadkan shanta casho ciriida taaganna waxaan leenahay runtii xaqoodii xukuumadda lagu leeyahay dhibaatada gaadhayna xukuumadda laga rabaa anagu waxaan leenahay daan xisbiga wadani nahay de maanta xukuumadda marka la eego arrimaha dalka ka dhacdhacaya ee isdaba joogga runtii aan ahayn milgihii Somaliland waxay ka gaabisay guud ahaanba xilkii loo idmaday sidaa darteed waxa ummaddu ka sugaysaa jawaab cad oo aanu leenahay de xilka iska casisho hadaan ay u hayn karaan ummadda musharaxa xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa isaguna waxa uu cambaareeyay in Ethiopian Airlines lagu qasbo fariisinka garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa
maadaama uu sheegay in Ethiopian Airline ay culays ku dareentay amaba ay ka cabatay dhabbada diyaaradaha ee cigaal madaarka Hargeysa iyo diyaaradda dadka ku cadlan imika Ethiopian Airlines wayna ognahay madaarka Hargeysa kun sanad iyo badh ayuu iska xidhnaa oo leeyahay waa la wadi mar alla markii la sameeyayna diyaaradaha international-ka sida Ethiopian Airlines waxayna ma fadhiisan karayno horta marka ugu horeysa in lagu khasban maaha Ethiopian Airlines khasab lagaga dhigo la yiraahdo waad fadhiisanaysaa Ethiopian la soo hadlayna dadkeenina halkan ay ku cadalan yihiin oo diyaaraddu awalba berberay fadhiisan jirtay ina fadhiisato berbera oo dadkii shicibka ahaa ee qurba joogga ah iyo dadkii kale yimid iskuuladooda carruurtu ku noqonayaan imika ina cadalan yihiin oo la yiraahdo jigjiga mara sabab aqli ku shaqeynaya maaha xukuumadda waxa laga doonayaa horta sida ugu dhaqsaha badan leh in Ethiopian Airlines u furto inay ka soo degaan madaarka berbera balse eedeymahaasi ay soo jeedinayaan asxaabta mucaaradka ee ku wajahan duulimaadyada diyaaradda Ethiopian Airline ee ay ka cabanayaan dadkii rakaabka ee diyaaraddu ay hore u soo qaaday ayaa waxa jawaab ka bixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo shir jaraa'id maanta ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta waxaan idin sheegaynaa arrinta airport-ka waynu ku guulaysanay dayactir baa lagu sameeyay Kenya ka berbera shirkadda dayuuradaha idinkaan idinka codsanaya qoladiina TV-yada waliba si gaar qoladiina TV-yada uga codsanaya ilaah baan idinku baariyay shirkaddii dayuuradaha ee Ethiopian Airline ee soo degtay ee weyneed ee kabtankeeda ka soo degay markii ay wareysanaysay wixii uu yidhi warkayga raaciya markaa sii daynaysaa haddii uu yidhi meeshu meel wanaagsan maaha maalintaa mar labaad yuu soo noqon mid labaad baa ka sokaysaba shirkadda Ethiopian Airline waa private shirkad dawladda Soomaaliland leedahay maaha waxay la mid tahay shirkadaha dayuuradaha ee yimaada ee markay iyagu muraad u leeyihiin yimaada marka aan iyagu muraad u lahayn aan imanaynin qasab maaha inay timaadiyeen inaanay imanin waa shirkad ganacsi xiriir bay nala yeelataa horumar la gaadho iyo horumar la'aan la gaadho maaha waa shirkad ganacsi oo meesha dakhli ka soo galo iyadaa imanaysa marka ay dakhligeeda iyo dareheeda ku arkayso iyadaan imanaynin laakiin arrin siyaasadeed ma aha waa arrin ganacsi weey waa arrin ganacsi ma aha in laga dhigo dabadeetana dalkii iyo Soomaaliland inay kharibmeen garoonkii dayactirkii lagu sameeyay inuu been ahaa muu ahayn adeer run buu ahaa waa tii dayuuradu fadhiisatay run weeye oo shalay may soo fadhiisan run weeye oo berri way iman doontaa marka adeer mushkilad maaha waa arrin ganacsi weeye dayuuradaasi markay fursadaasi timaado iyadaa iman doontaa balse fadeexadda fashilaadda dib u dhiska madaarka cigaal ee Hargeysa oo dul hooganaysa wasiirka duulista hawada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi iyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayuu beddelkeeda isku dayayaa inuu ku guuleysto dib u soo celinta duulimaadyada Ethiopian Airlines xilli uu ku sugan yahay Addis Ababa walow dadkii rakaabka ee diyaaraddu ay hore u soo qaadayna ay xidheen qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa isagu waxa uu xariga ka jaray furitaankii madaarka cigaal waqtigii uu sheegay wasiirka duulistu in lagu guuleystay in la dhameystiray dib u dhiskii laga fulinayay madaarka cigaal madaxweyne Siilaanyo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi airport-kan cigaal international airport-ka qaranka magaalo madaxda qaranka waxa weyn ka qabsoomay iyo horumarka uu sameeyay waa mid aynu ku faanayno waa mid aynu aad iyo aad uga mahadnaqayno ciddii naga caawisay dib u habeynta airport-ka ama upgradingkiisa innagoo aad iyo aad u qiimeynayna uguna mahadnaqayna Kuwait Fund iyo dowladdiisa iyo cidda waxay naga tartaan oo dhan waxaan jecelahay inaan halkan balyan ballaaran uga soo jeediyo staafka iyo wasiirka iyo wasaaradda duulista hawada airport-da maamusha waxaan weynaa qiimaha halka ka qabatay haddaba furitaanka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee madaarka caalamiga ah ee cigaal ayaan haatan u muuqanin in uu yahay mid sidii loo baahnaa u shaqeynaya maadaama diyaaradihii halkaasi ka haadi jiray muddooyinkii ugu dambeeyay uu hakad ku yimid taasi oo ay sheegeen wasaaradda duulista hawada Soomaaliland in aanay garanaynin kadib war-saxaafadeed la soo saaray xalay sababaha rasmiga ah ee Ethiopian Airlines ay u joojisay duulimaadyadeeda haddaba kasokow dib u dhiska lagu sameeyay madaarka caalamiga ah ee Hargeysa ayaa sida ay daabacday jariirada ka faaloota dhinaca duulimaadyada Afrika ee loo yaqaano African Aviation Tribune
ayaa caddaysay in gegida diyaaradaha ee dowladda deegaanka soomaalida oo ahaa gega bilow ah oo laga bilaabay halka u hooseysa islamarkaasina loo dhisay sida garoomada caalamiga ah ay ku baxday lacag lagu qiyaasay 3.67 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo la sheegay inay bixisay dowladda federaalka Itoobiya haddaba garoonkaasi loo dhisay dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya oo heer caalami ah ayaa waxa uu ka yaryahay lacagta ku baxday lacagta lagu dhisay ama dib u dhiska loogu sameeyay madaarka caalamiga ah ee Cigaal oo iyaduna kor u dhaafaysay 4.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyadoo magaalada Jigjigana u jirta magaalada Hargeysa dhinaca galbeed kilomitir lagu qiyaaso 200 oo kilomitir fadeexadani ka soo baxaysa dib u dhiska madaarka caalamiga ah ee Cigaal ayaa la sheegay inay ka dhalatay 10 milyan oo dollar oo lagu bixiyay dib u dhiska madaarada Cigaal iyo Berbera taasi oo ay gacanta ku dhigtay wasaaradda duulista hawada Somaliland ilaa haatan ay tahli kari laadahay in si rasmi ah ay duulimaadyadooda diyaaradaha u bilaabaan diyaaradihii ka hadi jiray garoonka caalamiga ah ee Cigaal waxaana looga fadhiyaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo in fadeexadaha dhinaca duulimaadyada ee dul hoganaya xukuumadda Siilaanyo ay ka samayso baaritaan rasmi ah oo ay ku sheegto sababaha kalifay diyaaradaha caalamiga ah ee duulimaadyadii joojiyay maxamed cabdi ligon cable TV Hargeysa